agaasimaha waaxda haweenka iyo caruurta ee wasaaradda horumarinta cadaaladda ee Somaliland oo ay weheliyaan saraakiisha wasaaradda cadaaladda ee gobolka Saaxil ayaa maanta tababar u furay mas'uuliyiin kala duwan oo iyagu ka socotay bahda cadaaladda ee sida garsoorka iyo sidoo kale ciidamada asluubta iyo xubno ka socday ururada bulshada. Tababarkan ayaa ujeedadiisu ay ahayd sidii loo ilaalin lahaa caruurta sharciga ku gafta iyo sidii loo xakameyn lahaa. Tababarkan ayaa waxa uu qayb ka yahay tallaabooyinka sareynta sharciga. waxaan halkaasi ugu horeyn hadal ka soo jeediyay isuduwaha wasaaradda cadaaladda ee gobolka Saaxil Axmed Cabdi. maanta oo taariikhdu tahay 18 waxaanu furaynaa barnaamijkaas oo ku saabsan xeerka garsoorka caruurta sidaa darteed waxaan intaasi kadib tababarka furtay oo hadalkaasi ka soo jeedisay agaasimaha waaxda haweenka iyo caruurta ee wasaaradda horumarinta cadaaladda ee Somaliland Ismahaan Xaaji Dool. maanta farxad weyn ayay inoo tahay inaga oo isugu wada nimid Ilaahay ayaa mahad leh halka aynu isugu nimid kana tashanayna dantii caruurta Jamhuuriyadda Somaliland. tababarkani maaha tababar maanta oo la qabtay tababar hore waa la qabtay gobolada Somaliland oo dhan hal gobol oo bariga ah oo baa noo harsan waanu ku soo wada qabanay gobolada oo dhan waxaana la eegayaa bal xeerkeeni xeer 36/2007 xeerka garsoorka nidaamka caruurta bal halka uu marayo artikaladii caruurta oo dhan baa ku qoran qof walba wuxuu ka lahaa door haday tahay booliska door bay ka lahaayeen haday maxkamadii tahay door bay ka lahaayeen community-gu door buu ka lahaa asluubta door bay ka lahayd garsooreyaasha door bal nin walba doorkiisa halkuu ka qaat inaynu bal isxasuusino oo inuu wax isweydaarsano oo idinkana waxaanu laba cisho seminaarka inoo socon doona biidmillaahi kariim labada cisho idinkana waxaanu idinka nahay marti wuxuu la idin bari maayo dad aqoon labaatiin dad ayaguba kiisaskii wax walba gacanta ku hayati laakiin waxba la isfahansiinaya ra'yi baa la isweydaarsanay bal garsooruhu dacwaduhu arkay ugu badan noocuu yahay dacwadahaas aynu uga hortagno. مسؤولين kala duwan oo iyaguna ka socotay wasaaradda cadaaladda ayaa waxa ay halkaasi ka soo jeediyeen duruusta kala duwan ee tababarkan oo muddo 2 maalmood socon doona lagu qaadan doono inta uu socdo. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, telefishinka qaranka Somaliland, Berbera.